Assalaamu calaykum dawadil kusoo dhawaada mid ka mid ah casharadii ku saabsanaa barashada luqadda Ingiriisiga. Casharka maanta waxa uu ku saabsan yahay present continuous tense. Marka waa mid ka mid ah tense-yada loogu isticmaalka badan yahay luqadda Ingiriisiga. Marka waxaan ku bilaabaynaa qaybta positive forming-ka positive form ama habka hadalka caadiga ah, hadalka furan. Sidoo kale waxaan marka ku xijin doonaa qaybta negative-ka formiga. Sidoo kale waxa ugu dambeyn doonaa question form ama habka su'aalaha lagu weydiiyo ayaa iyana ugu dambeyn doonaa. Marka tense-kan marka ugu horeysa waxaan qeexaynaa tense-ka waxa uu yahay bal habka loo isticmaalo iyo xilliga la isticmaalo. Marka waxaan dhahnay the present continuous tense tense-kan la yiraahdo ama dhacdadan socota waqtiga hadda socota waxaa la yiraahdaa marka is used waxa loo isticmaalaa for an action ficil happening dhacaya now hadda. Waxaa dhahnay marka tense-kan waxaa loo isticmaalaa ayaa la yiri marka dhacdo hadda dhacaysa or amase for an action ficil that kaasoo is unfinished aan weli aan dhamaanin. Marka ficil waxaa loo isticmaalaa goor hore lasoo bilaabay oo weli socdana waa loo isticmaalaa oo weli la wada howshiisa. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaa ficil hadda la sameynayo. This tense sidoo kale tense-kan is also used waxaa loo isticmaalayaa when the action xilliga ficilka is temporary xilliga uu ficilku yahay mid ku meel gaar ah. markii uu ficilka uu yahay mid ku meel gaar ah oo waqti gaaban kaliya uu soconayo waa loo isticmaalaa. marka waxaa dhahnay waxaa loo isticmaalaa wax hadda dhacaya wax goor hore soo bilowday oo weli sii socda. Sidoo kale waxaa loo isticmaalaya wixii ku meel gaar ah. waxa ku meel gaarka waxaa loola jeedaa tusaale ahaan wixii mustaqbalka dhacaya oo kale laakiin ku meel gaar ah waqti gaaban soconaya. tusaalihiis waan arki doonaa. marka intaas waa loo isticmaalaa tense-kan. marka formalaha ama habka ama ruleska ama sharciyada lagu shaqeynayo markii la isticmaalayo ama uu ku dhisan yahay tense-kan waxaa dhahnay waxa ugu muhiimsan verb to be-ga. marka verb to be-ga haddii aad garanayso tense-kan aad buu kugu fududaanaya. marka waxaan soo gelin doonaa linkiga hoose ee muuqaalkan verb to be-ga marka iyo personal pronouns haddii aad labadaas marka hore aad si fiican u garanaysay tense-kan aad buu kugu fududaanaya. marka ugu horeysa waxaa muhiim ah personal pronouns-ka habka loo kala siiyo verb to be-ga. verb to be waxaa dhahnay waa am iyo is iyo are. sidoo kale waxaa lagu darayaa marka ing ayaa lagu daraya marka verbkii waxaa lagu darayaa ereyga ing oo tilmaamayo dhacdada inay hadda dhacayso. marka waxaa dhahnay I waxay qaadanaysaa am, he, she iyo itna waxay qaadanayaan is, you, we, then waxay qaadanayaan marka are. marka intaan waa sidii verb to be-ga ahayd ama ereyga to be. marka ayada waxay qaadanaysaa am, she iyo he iyo itna waxay qaadanayaan is, you, we, then waxay qaadanayaan are. ereyga subject-ga marka si kale haddii aan usoo koobno waxaa dhahnay subject-ga waxa uu qaadanayaa ama waxa lagu darayaa midkooda waxyaabaha soo socda are ama se is ama am. kadib waxaa lagu sii daray ayaa dhahnay verbkii ama ficilkii waxaa lagu sii daray ing-da. sidoo kale waxaa marka ugu dambeyn jumladda imaanaysa objectigii ama lagu sameeyay marka ficilka. haddii tusaale meesha aan qaadano su-aasha ama tusaalaha koowaad hadda object lama jiro laakiin waxaa la yiri she is crying. gabadha ama she waxaa loola jeedaa dumarka ayaa loo isticmaalaa waa pronouns dumarka loo isticmaalayo ama gabadha loo isticmaalayo. she iyada is crying way oonaysaa. marka he is talking to his friend si wuxuu la hadlayaa saaxiibadiisa. the baby is sleeping in his crib.
cunuga waxa uu jiifaa sariirtiisa. marka we are visiting waxaan booqanaynaa the museum in the afternoon. we are visiting waxaan booqanaynaa the museum in the afternoon. ereygan hadda waa marka wixii temporary ahaa aan kasoo hadlayna ayaa loola jeedaa. marka Mark ninka la yirahdo is making pizza now. hadda waxa uu sameynayaa pizza ama pizzada ayuu sameynayaa. they are eating lunch right now. hadda waxay cunayaan. marka they waxaa la siiyey marka r ayaa la siiyey. ereyga mark waa wiil, marka magaciisa is ayaa la siiyey. marka waa hal qof. wixii hal qof ah ama wixii keli ah waxaa la siinayaa marka wixii singular ah, wixii hal ah, wixii keli ah waxaa la siinaya is. marka wixii jamcana r ayaa la siinaya. ereyga oo ah first person noun oo ayda ahna waxaa la siinaya am ayaa la siinaya. marka they waxaa la yiri marka they are eating waxay cunayaan lunch ayay cunayaan marka right now hadda ama xilligan. Francis ninka la yirahdo is talking on the phone at the moment. xilligan waxa uu ku hadlayaa telephone ayuu ku hadlayaa marka Francis. tusaalaha labaad waxaa leenahay I am. ereyga idii waxay qaadanaysaa am ayaan leenahay. I am washing my shirt waxaan dhaqayaa marka shaatigayga. she is sleeping iyada way jiiftaa. kids caruurta are playing cricket waxay ciyaarayaan cricketka. he is writing a letter asiga waxa uu qorayaa warqad. you are eating some food adiga waxaad cunaysaa xoogaha cunto ah. he is drinking water asiga wuxuu cabayaa biyo. she is cleaning her room iyada waxay nadiifinaysaa. ereyga cleaning waa marka waa nadiifinta. marka qolkeeda ayay nadiifinaysaa. marka she is cooking a tea iyada waxay karinaysaa shaah. marka halkan waad u jeedin wixii marka tenniskan wixiiba ah singular, wixiiba maaragtay keliya ah. marka waxay qaadanayaan is. wixii maaragtay jamac ahna ama jamac ah lagu daray yuda waxay qaadanaysaa marka r.